fiirinin point of view-gaaga. fiiri cunugan yariiska hoos muxuu dareemoyaa waay waxaas u sameeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelkayga iyo video cusub. maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo cayaalkaaga sidee ugula dhaqmi kartaa Montessori haddaa hooyo oo busy tahay, waalid busy haddaa tahay, haddii oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg cayaalkaaga iskool nooc kale ee aadaan oo Montessori ahayn. liano Montessori it's all about philosophy-ga maxaa la dhihi jiray ii sheeg haddaa cunuga waxay ku saabsantahay cunuga in independence la siiyo, cunuga in oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg oo fahantid oo maxaa la dhihi jiray waxaa waaye parenting with understanding ina oo cunugaaga u tarbiyeynaysid way fahmaysid cunuga aan fahansan tahay. marka 3 qodob aan rabnaa inaan ka hadalno maanta. 3daas qodob ku bilaabi kartid Montessori. so pointiga ugu horeeya waxaa waaye in aad cunugaaga follow garaysid, inaad cunugaaga observe garaysid, cunuga inaad fahantid. observe waxaa waaye inaa oo si cunuga oo fiirisid waxaan uu maxaa la dhihi jiray sameynayo, adiga ha judge gareynin. just haddii aad rabtid inaa gadaalka ogaatid camal wixii dhacay waay waxaas cunugaas u sameeyay waa qoran kartaa. so marka cunuga inaad fahantid everything cayaalka ay sameeyaan waxay ku tusinayaan wax ay u baahan yihiin. so maxaa la dhihi jiray weligaa marka cunug oo wax sameynayo ha u fiirinin point of view-gaaga. fiiri cunugan yariiska hoos muxuu dareemoyaa waay waxaas u sameeyo. waxaa laga yaabaa wax anaga u aragno cunugan edab daro inuu ka wado, isaga inay ka tahay curiosity, inuu cunugan wax baarooyo, waxaan uu la yaaban yahay, waxaan saan maxay u noqoto waxaas. so maxaa la dhihi jira markaste ha fiirinin adiga waxaa isleedahay, liano cunuga adiga ma aha, cunuga isaga si kale u fikiraya. marka waa cunuga inaad ogaatid oo cunuga fahantid oo cunugaaga observe garaysid. pointiga labaad waxaa waaye inaad ogaatid as a parent adiga ama as a waalid waxaa tahay qof oo guide gareynayo cunuga adiga sidaa rabtid ma ka dhigaysid ba, laakiin adiga waxa u tahay qudwo ama waxa u tahay adiga tusaala u tahay. adiga tusi waxaa rabtid cunuga inuu sameeyo. damoor waxaa rabtid cunuga inuu sameeyo aad samaysid, damoor cunuga uu sameeyo, laano that's the only thing that cunugaas uu yaqaano. for example haddaa rabtid cunugaaga inuu markuu oo wax qof siiyo uu dhaho thank you ama waa mahadsantahay, adiga every time cunugaaga uu ama wax aad ka dalbatid uu ku keeno waa inaad dhahdid waa mahadsantahay. liano damoor wixii maqlo wuxuu fahmayaa qof markuu wax ku siiyo qofkaas waa inaad dhahdid waa mahadsantahay. so marka it's all about markii oo adig ku dhaqmaysid Montessori, adiga it's all about inaa adiga oo wixii cunugaas aad rabtid inuu sameeyo inaa adiga samaysid si uu cunugaas u sameeyo. marka taas markasta maskaxdaada waxaa ku haysaa cunugayga waxaa rabo aniga waa inaa sameeyo si uu isagana u sameeyo. so adiga guide tahay cunugaaga, cunuga markay yaryar yihiin you don't have to sentence yaal badan inaa u sheegtid. hadduu wax qalad sameynayo ama qof xid gareynayo waxaa dhahaysaa okay saan tartiibtan u taabo maxaa la dhihi jiray bis hid haddaa dhahdid, laano cunug wuxuu umaleynaya inaa wixii uu sameynayo. third point-ka waxaa waaye inaa cunugaaga environment u samaysid, environment uu isaga dareemayo inuu wixiis isaga qabsan karo. haddaadan haysanin space weyn u samaysid maxaa la dhihi jiray cunuga meelu alaabtiis kala soo baxayaan everything step by step. kowdii wax u sameyn kartaa qaanada aad dharka ugu ridaysid ama midda wax usoo saari kartaa laba dhar leh. labada dharaa meesha usoo gelinaysa hadhowdii dharkuu rabo kala soo baxaya. laba dhar adiga cunugaas haduu qaato caadi ay kula yihiin.
horta cayaalka special markay yaryihiin waxaa waaye out of sight out of mind. haddii cunuga wixii u jeedin maskaxdiisa kuma jirto, laakiin haddaa wixii soo hordhigtid oo wixii cunuga aadan rabin inuu taabto obviously cunuga wuu taabanaya, liano wax kasta oo hortiisa yaalo wuu taabanaa. so marka wixii aadan rabin cunugaaga inuu ama jabiyo ama taabto ama aadan u alaaw gareyneynin ka fogeeyba si oo problemkaas uu kugu dhicin. marka dharka waxa inta aa rabtid uu xiranayo aa usoo saari kartaa step by step. markuu cunuga oo solid bilaababo adiga 4 months 6 months 7 months camal cunuga cuntada hordhig, tusi sida loo cunayo, isaga iska cuno. horta the first time dhan cunuga waxay noqonaysaa like a lot of mess uu sameynaa, mess badan uu sameynaa, like wasakh badan uu sameynaya. so waxaa laga rabaa just be patient, liano the more cunugaaga mess uu sameeyo the more uu barto the right way inuu cuntadiisa u cuno, gacmihiisa ku cuno. marka as much as independent cunugaa ka dhigi kartid inaad ka dhigtido independencysid meel wax kasta uu u baahan yahay si uu adiga maanta dhan intuu kugu imaado uusan ku dhihin waxaana raba. haddana cayaalka markay sii yaryihiin badanaa waxay la oonayaan ama frustrated u dareemayaan, wax kale ma aha, liano wixii ay rabeen adiga maxaa laga yaabaa cunugii hadal uu ku hadlo ma haysto, adigana inaadan fahmeyn. laakiin wax kasta aa isleen cunugaa wuu u baahan yahay haddaa meelu isaga gaari karo aa ka dhigtid, aana haddana especially guriga markaa wax ka qabanaysid oo cunugaagana soo jeedo especially waxaa sameysaa tartiib wax u sameey si uu cunugina u barto waxa sida loo sameeyo. liano anaga waxaan haddee noqoto ama wax tirtirid ama haddee noqoto weel dhaqid iyo anaga wixii waa naqaanaa, soo marka waa boobsiinayna. laakiin cunuga haddaa tartiib adiga markuu kuu jeeda aad tartiib u dhaqda si uu u fahmo stepska aa qaadanoosid, liano cayaalka every time agagaarahooda daawanayaan, way observe gareynayaan wax kasta maxaa dhahaa environmentigooda ka socdo. so marka the third point wuxuu ahaa in environment cunugaaga u sameysid uu wixiis isaga ku qabsan karo uu maanta dhan adiga kuu baahanaynin. marka saddexda point hal mar waa soo summarize gareena. midka ugu horeeya waxaa waaye in maxaan dhihi cunugaaga follow gareysid, interestigiisa ogaatid, observe gareysid, aana fahantid point of viewgiisa. adiga point of viewgaaga is not important because adiga waxaad dareemaysid waa, laakiin cunuga point of viewgiisa inaa fahantid. pointiga labaad waxaa waaye inaa ogaatid adiga just waxaa tahay guide, waxaa tahay maxaa dhahaa tusaale cunugaaga u tahay. so everything aad sameynaysid waxaa rabtid cunugaaga inuu sameeyo ha noqdo. the third point waxaa waaye environmentiga cunugaaga in aad ka dhigtid environment uu isaga oo maxaa dhihi jira isaga uu wax ka qabsan karo, uu dareemi karo meeshaan uu joogo like waa loogu talagalay. liano marka wax kasta cunuga ay ka fog yihiin ama uusan awoodin wuxuu dareema in uusan meeshaan ugu dhex jiro uusan ooba loogu talagalin. marka insha allah waxaa rajeynaya inaa wax ka faa'iideen. haddii aa videoga ka heshay like saar, haddii aa nagu cusub tahay aa subscribe ku saarneen insha allah subscribe saar si aa more videos oo saan oo kale markaa soo dhiga markastaba oo notification lagu soo siiyo insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.